سورة يوسف عليه السلام وحلا يقول تلمامها سورة يوسف كجرة تابانا يا مامو تابانا يا كسو أروري الحمد لله رب العالمين مكان قلنا يا بعد كان جوجل كمكان قلنا وهو سورة يوسف وحي نقطة وهو سورة بيبقى aad baa lagu sameeyay waa laga sameeyay magister waa laga sameeyay PhD waa laga sameeyay rasaayil fara badan oo qorana way ku jiraan Google-ka ma ka wad baari kartaa inta yar wax soo qorqor hadii la haydmo jawiga horta ay soo daadegtay suurad Yusuf laba arrimood ba caan ku tahay horta waa suuradda kali waa sheekada kaliya ee hal suurad lagu soo arooriyay sheekooyinka kale way quraanka oo dhan bay ku taxayeen نبي الله آدم شيء كذا القرآن كله بيكون جرتا إبليس يهوش القرآن كله بيكون جرتا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أنبياء ذكر الله إذن نبي الله موسى القرآن كله بو يكون جرا سورة يوسف سجاري كم يسوع أرورنا حكنا أول إلى آخر كذي لقوا شيء وحيسود دكتي سنة كي حزنية اللي النبي بروجيسية يسود دكتي صلى الله اللي يقول انتي أديركي أبي طالب يو حاسكيسي خديجة رضي الله عنها وحانو دحيسي لبدي عقبة أيو دحيسي بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية marka xilli uu nabigu murugeysay sallallahu iyo xilli uu nabigu u socdo inuu bedelo magaalada uu joogo marka inuu bedelo oo ansaar iyo gurmad uu maxay tole uu helay muslimiintina ay heleen casaba mustalax ibn khaldun ay heleen casaba cusub mar haday reer marka ay diideen inuu helay marka nabigu cid cusub oo u heelisa xilliga adag ay soo daadegtay يعني وقت بدن حيث الاسكاga qaadi كذلك suurada markaa waxa ka soo baxaya تحقيق الأحلام bilowgeeda waxa ku bilaabmaysa a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim bilowgeeda qaala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aytu 11 kawkaban wash-shamsa wal-qamara ra'aytuhum li saajidin marka waxa ku bilaabmaysa xulm iyo riyo ayay ku bilaabmaysa oo markaa ay tahay xalaalo wixii la sameeyay weynina riyo ku bilaabma xalaalo wixii macna leh riyo ayuu ku bilaabma imaam al-Hasan al-Banna rahmatullahi alayhi oo jiray ahlamuna haqa'iq al-ghad saboo lix dhalinyaro ku dhigaya ayuu jiray maanta waxaan ku riyoono ayuu baa biritoole inoo noqon doona biritoole inoo haqa'iq noqon doona marka hatta haynta marteeda iyo taagteeda hayn laakiin qofku hadii jeeyo inuu himilo iyo hadiidile inuu maxay inuu leeyahay todobada ayaa ku jira suurada oo wada mixan iyo ibtilaa'aat ah ay aad ugu badan mixan iyo ibtilaa'aat oo kaana nabiga leeyahay sallallahu xaaska geeriyootay iyo adeerka uu geeriyooday dhibaatada ku haysata marka waxaan kala kulmay oo idin bal walaalka nabiyullah Yusufna kaaga sheekay dhageyso wixii ku dhacay iyo sidii uu uga baxay todoba qodob baa ku jira walaalaha hooyada bahay dhaleen oo cadow kugu nooda godkii lagu riday iyo naxarintii ceelka markii lagu tuuray adoonimadii in la iibiyay aaba ma haysto cid u heelisa ba haysan gurigii uu galay xaajiyadii joogtay oo isaga naftiisa uu gurigiisa oo yada milxa kala iyo balaayo kala maxay toolay ah jeelkii lagu tuuray kadib markuu ku soo barbaaray guri wasiir marka jeelkana wuxuu ka dhigay mixna markuu ka soo baxo wasiirka noqdayna waa isna wuxuu ka dhigay mixna labaduba waa mixna hayntuna waa mixna haynlaatuna waa mixna faqriguna waa maxay toolay waa mixna taajirnimaduna waa iyadna waa mixna محنة المشاعر مشاعر البشرية قلب قدام بيو مركي وبقر كنقضي ولا ليه والهوسي مادين ما أرجو سطها ما على لسامات أقول هوس هذا الجوجي مسبحته لا تثريب عليكم اليوم صار يدنا شيء بن آدم كوجيا مركي لو جبيه لو هي فارق لو دبو حتى أنا التمكين إلى هيك عنتها الهوس قليل كي كل دبي هذا المشاعر ما حد كسمين دوت ما
ما حيث على سيد النبي صلى الله عليه وسلم لا تثريب عليكم اليوم أنتم طلقاء تطبع قضبة أي سورة مربى مال أي كجاء إيمان الساعة درسي مكة وحوي الاسترشاد بمنهج لماذا أنا أخرينا بل القرآن كما يجنا التميز المؤسسي كهلي كرنا قرآن مؤسسوين كينو إن إكسلنس إن جاران قرآن كهلي كرنا كصورة وقضب الاسترشاد قرآن كينو مرق البنينا لبا المبادئ الإدارية عند نبي الله يوسف عليه السلام إن بركة يجنو وحمامل كحضليا سورة يوسف مكجرتا سأينو نلشيني أينو نغنا وقاعدنا قضب صدحات وحوي التعريف بالنموذج التطبيقي ليوسف عليه السلام في المجال الإداري نبي الله يوسف مشاكل كي ولكل ما وينا دقالة كي شخص كما هضلينو كي كما هضلينو محيط ولا سيد دينتيسي وبرباري سيد دعوتيسي وفيدي حتى يسوق جيلكا محيط ولا كجرة لكن جانب كان كهذا وحوية بالمشاكل كي دقالة معلنتي وزير مالية لقى دقي محو سميه سيدان وقبح فصدح لا قضب marka waxa gelin karnaa marka quraanka 114 aayadood waxyaabo far badan bay sameyn karnaa marka ardayda jaamacadaha dhigta ardayda researchada maxay tolo sameynaya waraaqo far badan oo cilmiga laga qori karaa maxay tolo dhacdooyin far badan oo quraanka noosheena maxay tolo sameyn karaa si uu xaqiiqoobo quraanku waa dawo ayuu u yahay nolol maalmeedkeena marka hadaynu ka sameyn weyno awraaq baxthi cilmi hadaynu ka sameyn weyno wuxuu noqonayaa un wacdi iyo waan لبدا منهج بان قادم هذه حيد قاب كينو المنهج الاستقرائي والمنهج التحليلي المنهج الاستقرائي ومحي آيات هو أورينا سورة يوسف كجرة موضوع ربنا أيام العليس كسارنا كما إيجي إنه سورة يوسف جانب والبكي إيجي منه كاس ومنهج الاستقرائي مامون هجان مارين لعد لقالة سورة يوسف بحال كجرة ونيجي دورنا المنهج التحليلي وحندور analyzing methodology إن أجنو مركان محيط لي إن شيلنا وحسيبين واقعنا أي محيط لي وقفة سكرنا مركان وحنا يجدون المفسرون محي كي لهذين المؤرخون محيط لي محي كي لهذين الله المستعان هذا أخري كرسان سمع سديد قضب يدرسين هدي لحين سديد قضب باكي إيجنا سورة يوسف وحكو جرا بينولي والشهادات فربضن باكو جرا حق النقالها اقتصادي حق البلشدة حق الدعوة صدح لا قضب وين حيث ويا كو وحنك قادم دون الطموح ambition العلم الأمانة التأني يعني الصبر لكن ومرها صبر قوي مرها صبر التأني إدارة المخاطر المبادرات المجتمعية تضبع إدارة الوقت سديد التفاوض negotiations هذا سديد دا قضبة أقوى وين درسينا ما تمخامد والبيت نصوير قاعدة يركي شيء دونا كدبنا وينسكت عندنا إن شاء الله إذا حكى هذا مكان الطموح العلم الأمانة التأني الإدارة المبادرات المجتمعية إدارة الوقت مهارة التفاوض ودورها في اتخاذ القرارات الحاسمة الطموح وقريو الطموح وقف وين هل هذا هل وين الله هذا وحبها هيننا هرت هل طموح يوسف عليه السلام في وضع الخطة الاقتصادية التي تحتاج إلى تحدي كبير لتحقيقها فاحتوت على المراحل الزمنية لتحقيق الأهداف وجاءت توجيهات إدارية داعمة لتحقيق الأهداف المرحلية. نبي الله يوسف markii lala tashaday jeelka laga soo saaray boqorkii Masar loo sheegay nin baaqiyooyinka fasira oo jeelka nagula jiray ee la soo saaray arintii mashaakilkii markii loo sheegay markii uu waxa kama baxay karay walaal uu jeel baa ka soo baxay war aniga abay ma u baahan in la baanto war adeer waa dulmaan islaam baa meesha igu riday bir hore ma ashtaku nabi allah yusuf wixii ku dhacay kama shay wixii yoontu meel iska dhigay ayaa wuxuu yiri waxaas ay ku dhacayo taas dhacayso xalkeeduna waa sidaayo waliba hadii aniga la ii dhiibana waan maareyn karayaayo shuf marka qofku markuu balaayinka ku dhacayna la xaasido ama shaqada lagu dhibo ama waxa sooran maxaa ka galay adigu intaada yar halkaaga iska joogo nabi allah yusuf ma argoosanin mana dhibsanin laakiin wuxuu la yimid طموح
طموح أيوم حيتولي طموح سوى عن كعك أن قرآن كأخري وكاسر markii dhibtii loo sheegtay waxa jawaabiisi waa qaala tazra'una 7 siniina da'da fama hasattum fadharuhu fi sunbulihi illa qalilan mimma ta'kulun wa talabisi thumma ya'ti min ba'di dhalika 7 shidadun ya'kulna ma qaddamtum lahunna illa qalilan mimma tuhsinun aho hi afreebate thumma ya'ti min ba'di dhalika 'amun fihi yuwafu an-nas wa fihi yasrun هذه رؤية نبي الله يوسف مشكلة وقعي مشكلة وقرانية ما هي المشكلة دايغنوس هذه المشكلة ده صوصوتها مشكلة دي كلية كشيكين تدنا عذر بيا بورتها مجال الدعوة آد بعانوية أنا هايستا مجتمعي واصلا لبتنا تاجر dadkii ha qofku inuu lag marka dambe addicted ay qofku ku noqonay inuu ka sheekeeyo negative inuu maxay ka sheekeeyo isagana way reebtaa xuluulna ma keeno لكن نبي الله يوسف واشيء ورحنا صوص عبد بلايا صوص عطا ساينا وكلا قايبية رجنا وأبورو ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصر إذا قضب كودوا الطموح حل المشكلات الكبيرة مشاكل كقفك إنه حليه إيجابيات كان إنه شيء أملنا رجنا إنه أبورو رجنا قفكم حتى حتى يجري إنه أبورو هذا طموح يوسف أما طموح يعقوب به عليه السلام مرنا كمو قنعين إن كيسي واي إن الله يكين دونه سقوا عند بيالي وجبوبي ودبر كل عي ودبر كل دبعي ها أيوب هذا الرجل يا أبني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافر ما كان نبي الله يوسفنا رجو مشكلة أنه مصر كل عليه إنه حل يطمح لها وضيق جبوبينا نبي الله أيوب عليه السلام يسوون كموقع عين كوطموح فحثهم على عدم اليأس أمام الأهداف الكبيرة وإنما السعي المستمر حتى تحقيقها وحكوهر جوا أنتو دونها أتكاظوا لكن هذا يجي قفك إنه ليه هاي حتى رجع إلهي سبحانه وتعالى كحرا إلا أنت النور يهينا قفك إنه مرنا برجع إنه قفك رجع ليه لابد قضب قدر استاجدنا الطموح العلم ودوره في الكفاءة الوظيفية وشاكت النبي الله يوسف قال اجعلني على خزائن الأرض markuu mashaakilkii ka jawaabay uu yiri waxa dhacaya wixii wasiirka maaliyadda iga dhig hawsha idii bari laba arrimood baan leeyahay horta ku dhici maayo tuugmay maareynteedana waan aqoonna waan leeyahay marka kamuu soo gelin nabiyullah yuusuf si dadban shaqada uma qabanin recommendation kuma soo gelin walaalkii ma keenin habayartii ma keenin ayeedii ma keenin isku wadaadaan nahay laguma keenin ninkaas wixii uu sheegtay waxaasaa idinku dhacay aqoonteedana waan leeyahay marka ninkii wadanka maamulayay uu arkay ninka inuu u baahan yahay shalayna adoon buu ahaa jeel ku jiro islaani ay xitoolay jaleecatay marka ijcalni ala khazaa'in al-ard inni xafiidun caliim laba arrimood buu sheegtay horta inaanu ku dhicin baa ballan dhicitaanku kaliya maaha xoolo la qaato sirtaada bixin maayo hantaada bixin maayo hanka aad leedahay bixin maayo waxa waan ilaalin marka kaliya uu lacag maaha markaan leenahay xaditaanku waxa wax kasta oo dhan caliim aqoonna waan leeyahay way binaan ala tanawuc aqwaal al-mufassirin shan kitaabo mufassirinta waxa ka soo arooriyay kelmadda al ilmi maxay uga jeedaan تفسير كطبري واتكهل ابن كثير واتكهل واتكهلي شيخ سيد قطب تفسير كيس الظلال واتكهل أقول إلى شان كتاب ما كسر أيجي كلمة على علم محي كيل هذا بل إلى يراد كورت وحشيت النبي الله يوسف العلم بتولي شؤون الموارد الاقتصادية مشكلة تاجن معها محيطه لي إنه بطول صو صار معه حطوا يقانس بطول كله صو صار ده مشكلة تاجن معه ها ومحيطه أسامة الباز بروفيسور في مصر جها أسامة الباز يوتيوب ku jira oo ka eegi doontaan ayaa markii uu ka soo qalin jabiyay jaamacadda Mareykanka soo qaatay PhD-ga maxay tolay xilligii Jamal Abdi Nasir Masar waxa la yiri school secondary chemistry ka dhig isaguna waa geologist PhD markaas uu aniga batroolkana soo saaray
ayaa shaqada soo bartay chemistry baan dhigaa markaas lagu haaye ardada maxay tahay ku baahane maxay tahay iskuulkii baan tagay buu yiri waxaan u tagay in aanu isku fasal ahayn jaamacadda Masar inta aanu ka tagin oo PhD ka soo qaatay ruushka isaguna 28 jir ah marka ka ruushka ka soo baxay isagu waa nuclear physics ayuu PhD ku soo qaatay waxaan u dhigaa الضوء والصوت الضوء سرعة الضوء والصوت مكدغا اسكول سكندري marka ninkii qarqarayo dhiisan baan soo aragnay markaas ugu dhageeyay usama xakeed ka timid maraykan baa kamid oo jaacad baan soo qaato halkan maxaad ka qabanaysaa ciyaalkan u dhigaa buu yiri lightka iyo soundka aan u dhigaa waa ninkii nuclear soo qaatay markaas uu qarqarayo buu yiri markaas uu halkan ana ku baaba'ay shaqadan ka tag anu waa ka teekari way iska tago iska caraf wasaaradii baan ku soo noqday markaa uu sameeyay baas wasaaradii baan ku soo noqday kaas ku anu waan idinka noqonay maraykan baa ku noqonayaa laakiin ninkaas deelabata jirka ah ka gaadha meesha 2 sano kadib buu waduu istaagay ku go'ay iskuulkiisa laga dariga isagoo dhisaya isagoo dhigaya ad-daw wa sawt marka ummadda ay ku garan weydo waxa aad tahay iyo waxa aad sidato tamuutu min al-kamadi al-qahru bilha wal-qahru وسماد مثلا صبتها وقهر من صبتها هذا كلمة قهر وكلمة في عربية فصيحة ومركو قهر وسيزي هذا قهر ومركو سيل بالنابمو أي وحنا النقطة قهر وهو الكمذ وأنا لو قاع فكان النبي الله يسبحه شيء توقع مشكلة أقول ما أنا أقول لها كو لا بقول شيء العلم بحساب سنية المجاعة والجد أنت أبارت دعيسو أنت بيلاءات أي دعيسو هي محيل كسبنا إسلام حيث ولا سوينا وشيء كذلك wuxuu sheegtay afafkana waa naqaanaa afafka lagu hadlayna oo reemi baan joogi jiray marka dadka dibadaha ka imanaya ee maxay tole country side ka imanaya wana faqaana iyaga maxay tole laftoodu waa naqaanaa sida wax loo kaydsadana waa naqaanaa fama hasadtum fadharuhu fi sunbulihi illa qalilan mimma ta'kulun qodobkii waxaynu sheegnay atumuh al-ilm qodobka saddexaad waa al-amana ودورها في تحقيق الكفاءات في العمل كان أنا وتقنن إن بدن بانقوه بعدي مركا وش يسوى وكلها حفيظة يعني قف مكا إنه أمين إنه يهي أمين في السر أمين في السر أما أنا أقول مهم سنة وحويا سرت إلى نتين سرت إلى نتين مركا قف حتى على مستوى شخصي صاحبك حتى مستوى شخصي بشر بين النهاية وضع حنو لباطه وين وضع أكثر تعالى marka qofku waa inuu heli kara qof uu la hadli karo oo uu ku aamini karo hatta waxya dareenkiisa hoose laakiin uu ilaalin karo qofkaas وهذا ايضا من الامانه وهذا ايضا marka xadiiskii waa ka ahaan maxay tolay المجالس امانه marka farfadda shirba fadhida xambaarleedii balaankii baad dhigaysaa mustaqbalka 10 sano kadib maxaa noqona haduu hargeysa laga wada maqlo المجالس امانه الأمان قلبك فراد وشيغان ودادك وحيه التأني قوي الصوت عاير الدقدق صلف فضوض أقول لكي قبل بحبر ورصل فضوض أقول عاير لقد أنا بصومالي أثر بصومالي لو يقاني مشكلة دي هنا واطن التأني حاربنا واحد والبين نقصه إن نقول له التأني ودوره في إتقان الإنجازات وحيالها وين حولها وين أفكارها دعوتها دينها هانتها أمضها أو نبدلو دولتها أو نجحا عذو أو لإسكعابيو أبد أو لكوريو وحيالها وين وحيبهيه وقت دير أي محيط يبهيه التأني ودوره في إتقان الإنجازات التأني التعريف بنفسه عند إخوته عندما عرفهم أول مرة مركب بقر كون نغوي نبي الله يوسف ماشي وفريسي أي مادين يسوي مركب أو قرت سمع يجونا ما يقرأ مركب يسكو مشي معرى وهالكي ونالكي يوسف بان حي مركب محيط هذا معرى ها التأني أو حسب موجين يلا وضع أركنه ها إمام شافعي وحورنجري تغابى فإن سيد القوم من تغابى أقونت هذا يفكر كذا يكرت هذا صور وندق مركليه لو هو فرح ما مركب ممر حرج سيد الإمام الشافعي ممر حرج أهبل أسكنك أهبل التغابى
oo saasala laha ma sidaasa hal ugu moodo daamina tahay buu kulay imaam Shaafici ha yaada iswada tiraahid maxay fikrad kastaba ana curinaya ana ila tahay nafta bani aadamku waa dhib badata at-ta'anni marka ayr hal ugu casaystee warbar kaliya hays wadayeen dibadda hays wada keen nabi allah yusuf waa sugay marka reerkiisa waali waa u sugay isku buusa sheegay ta'anni al-khuruj min as-sijn hatta tadhhar bara'atuhu dowrkiisa nuu ku xidhnaa jeelkana muu degdegin iska cibaadaysanayay diintiisii buu waday maxay toolay labadii nin riyada u sheegay buu diin ilaahay ku faafinayay waqtaara tawqiitan munaasib wa huwa ba'da dhuhuri bara'atihi kartidiisii iyo aqoontiisii goormuu soo muujiyay markay boqorka ay kulmeen laakiin wuxuu yiri horta inaan bariyayo taala soo islaantii loo yeero al'aana hasasa al-haqq wa anna raawatuhu an nafsihi marka waa u sabray iyo dulqaadkeedii ayuu maxay toolay ayuu leeyimid mujtamacaadku way ku kala fiican yihiin marka sociology la dhigana mujtamacaadka badawiga ah aan xadaarada durugsan aan lahayn halleena badawnimada marka leenahay maaha dhaleecay maaha qadx maaha bal marmar waa madx يمكن ابن خلدون كانوا أكو سبب برضه المدنية والبدوية مد والبحث كل شيء يا وناك إلى هاي تكلم كل شيء يعني حتى ولا إلى هاي لكن مجتمعات كأن لحين حضارة مجتمعات كإيش بيرلية أهو كلام مجتمعات كبيرلية قضارك أنا كيف كم ده ها قضار بيرلية سبحان الله يقعد معي عاير اتأنى واسك صبرا واسك دلقادنا جوجت هذا حتى اسك قبضته نفسي يسبب بضا هذا تأني هذا فيه تأني مرمر وعكس ووحي كان تابعوها وحو كدنا قفك انا فضع يعزك يا شرفته كدلا ومن مرفع ربنا ولا قتلتنا على ده من مرة لا باي ولا ضرر قتل دوني ما هو حاجه شرفته يعزك يا حاجه اي سو غادو مره ما بوزيتيف وواضح حبارة سايو طلقات أي محيطة أي ليلة عكس المجتمعات الجمالية المجتمعات الجمالية عز أنا يقدع يحضر في كروق هذا أي محيطة أي ليهين صبر يطلقات فربضان يتأني ما كان لبضع سيدي لسكو كيني لها أي بعض نبي وما عليه صلى صحابة الله فردية وحجريان نبي إلهي جنة قليليو وكان جنة مركو قلي ayaa wuxuu yiri ilaahay uu weydiistay ilaahu beer aan fasha isii الحديث صحيح markaas raxmaanku ku yiri waxaad beer uga baahan tahay wax walba soo dhigo si alam uctika kull shay alam akfika waxaad beer ku farsamay iyo beer baa dooraya markaas ilaahay abuurkii midhihii buu ilaahay siiyay markaas uu sayriyay isla markiiba geedadkiiba waxay midhihii baa taatay markaas iska hoos fariistay انت بركو النبي شيغبا نين maxay tolay muhaajiriintii reer Makka saxaabi ah ayaa intuu qosli buu maxamed ku maxamedow wallahi ilaahay baan ku dhaartay kaasi waa ansaar bi reer Madiina buu cid kale ma habu ka beerta ilaa maanta daba socda marka shوف المجتمعات marka ahadiisa markan sociology ku akhrino wa mujtamacaat Makka ka yimid hada muhaajir hada ibli hada taajir tilmaama ayuu leeyahay hada madani beeru leeyahay biya meesha maxay tolay u yaala aayar warkiisa marka mujtamacaadkaasi hatta maxay tolay marka ay nabiga ku hor kaftamayaan sallallahu alayhi wasallam sibay maxay tolay ay ugu kaftamayaan qodobka shanaad wuxuu ahaa إدارة المخاطر ودورها في استمرارية الأعمال ومركا أي شيء أي تهي هاوش مركا أي دكنتها هي ممو يعني مركو جوي عادي مركان كرايسيس أنا جري مركان أي تنشن بدن مركان أنا جري ما دتك لو مكلا حولن كرو يعني لو مكلا حولن كرو دتك ممو كرتيدو بس موقته كرتيده حقيقي waxay muuqataa inta shadaa'id dhibta markay timaado tension markuu yimaado dhibaato markay timaado sideen uga baxnaa markaas tartanka xaqiiqiga uu maxay uu yimaada marka taala nabiyullah yusuf waan ka arkaynaa idaaratu al-makhatir oo yadna u baahan marka sabir badan dulqaad fara badan urin iyo ku dhac qofku inuu maxay inuu leeyahay oo yalla uu oran maxay waxan muxuu u keenay oo isleeyahay kaga badbaadi إدارة المخاطر ودورها في استمرارية الأعمال قال تزرعون 7 سنين دأبا
famaa xasadtum oo aydi bilowgeedii fadaruuhu fii sumbulihi marka toddobadaa sano ee abaarta ah iyo toddobada sano haddii ay bukuuro yahay dhibaatadu ay dhacayso iyo sanadku ilaahay barwaaqada maxay lagu keenayo taasina markaa waa idaaratu lmakaatir waxa duug baa jira أعتقد حتى هذا عصبيه ملها يربى دكتوراه قاطي وحلا هذا إدارة الأزمات في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال النبي في نكجرو لكن افتاقوان هي يقول إدارة الأزمات سيديبو النبي محمد أزمات كي وينايا كل عاي سيديبو النبي قوم معمولي marka qolooyin kan conflict resolution ka iyo xal khilaafaadka dhigta iyo wuxuu noqon karaa marjiciye dhan ayuu u noqon karaa nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam maalintii loo waxyooday ilaa intuu geeriyooday 23 dagaal buu maxamed hogaamiyay isagu al-ghazawaat 23 ghazwa sariyaadka iyo wuxuu diray la cadda laha wala xisaab iska dhaafay mashaakilkii kale ee family iyo mashaakilkii ijtimaaci iyo waxa soo iska dhaaf ha ومع ذلك هذا سيدنا النبي محمد وقبل حجري صلى الله عليه وسلم فكان كاس يركض الى راسيه وينوسوا قال تزرعون 7 سنين دائما فما حصدتم فذروه في سنبله الا قليلا مما تاكلون ثم ياتي من بعد ذلك 7 شداد الى اخر الايات واي مخاطر كا ونبي الله يوسف وشاغي وحو قيبيه 3 مرحلات سني الرخاء برواقه حلقة برواقه اللي بجرو العمل في الزراعة marka xilliga uu degan yahay jawigu lama shaqeynay miya may wuxuu al-amal fi az-ziraa'a han beerana wax xoogna wax u beeran han dadaalno siday u dadaali jirnay hay u dadaalno hal wax un baynu ku dareennaa wax kasto inuu beerano abuurkeena ma wada cunayne kayd baynu ka shaqeynaa laakiin shaqadii waa sidii ha yani marka kale inagoo kale الحمد لله روب داعية لabo صدح صدنا ayaynu barwaaqo bixito lehelayna oo isdhiganayna biyihi qabsada inagu ma jirto meel maxay toolay wixii abuurateen meel ku dhigta kayd lahaada inagu ma jiro sanadka afaraad markay abaartu timaado ayaa dhawaaqo afarta jihaba dhawaaq ka dhacaya وهذا مر معها او لaba maaha oo saddex maaha oo afar maaha وهذا كل يوم وهذا كل عام shirkadihi intii baa lagu soo rafanayaa kana ka dhacday saas oo kale iyo show ah telefishinada waa mushkil ma awal mar ay nagu dhacdaa may ma markii labaad ay nagu dhacdaa may ma markii tobanaad ay nagu dhacdaa bay bilibaada marka maadaama aynu dhulka ilaahay juqraafiyeena aynu naqaano limaada aynu biyaha u qabsan laana koow limaada aynu kayd u lahaan laana 3 4 5 sano kayd qaran ah meel inoo yaala waxaynu u sameeyay limaada la naqul durus min nabiyullah yusuf alayhi salaam marka horta xilliga maxay toolay barwaaqada la yahay ee la degan yahay aziraa'ata wal jidda wal ijtihad way muxuu ku xijiyay nabi yusuf sinni ashidda balaya imanaysa iyo xanuun baa imanaya ha wixii aynu dhiganay hadaba kaydkii aynu dhiganay fatradii hore haynu isticmaalno innahan reebanno oo sumbulka ku jirto yeelan wada dhalin si aynu hadhow toolo ugu beerano yeelan abuurka aynu beerano yeelan waayin لبدا مرحله بوقيبي المرحله الثالثه عام الفرج عام الفرج marka مليلوبيا wixii la soo maray بحير استمرار العمل في الزراعه عن طريق البذور المدثره سوينا كيدسنay wax wasanadkeenu isla maxay marka saddexda marxaladoodba waxa kelmadda mushtaraka ku waa maxay العمل saddexda intaas ku jirta hadii barwaaqo leeyahay العمل هذه بلاي تماضي أبار العمل هذه الله سبحانه وتعالى عام يغاث فيه الناس ويعصرون العمل صد هذا مشترك والنبي الله يوسف يختديس مركا فديرها نقول هنا مكان لا يادو نوروي ودك حيار 5 مليون مكان لو يراهدو بترول بيلهي سيي بترولka waqooyiga ilaahay siiyay marka lagu yiraahdo 8 generation ee soo socda 8 generation ee soo socda ee Norwegian-ka ah budgetka isticmaal lahayn meel bay dhigeen suurada Yusuf ya aad u akhriyay marka talo suurada Yusuf weena aad ugu tukada taraawixda radiyallahu an ajma'ina marka lagu wada kaayari maaha maanta waxay cunayaan generation maanta jooga maaha batroolka waqooyiga waxay ku leeyihiin inagu faca imika nool keligi ma laha ay leeyihiin marka waxay u sameysteen waxa la yiraahdo as-sanaadiq as-siyaadiyya
xiran wax lagu rido mooyaane wax lagama qaado marka waa wadanka koowaad ee adduunka ee dhigay faca sideedaad ee dhalan doona faciba 40 sano ku dhufo في كل جنريشن 40 عام ku dhufo 4 في 8 budget كم هذا 320 يعني صدح قرنيو soo socda taad meel bay dhigan waxaabaan ugu tagay anigu aan tagay waxay leeyihiin magaalo yar bay leeyihiin tuulo yar bay leeyihiin waxa lagu kaydiyaa wax allaala waxa wax laga beero abuurkiisi albudur bank albudur waxaan ugu tagay baalkeena muxuu ahaa isxaaq oo baalkeena aan cuni jirnay garowgeena cilmi jaamac cilmi jaamac baan ugu tagay wasaaqood hada minna kan xagga heedii ku yimid waan ka soo qaadanay bal wax kasta dhici kara lagu kaydiyaa oo la wada freezing xitoo la wada gariyo wax laala waxa adduunka flower yaala waxa soo wada qaadan halkaas maxay yiraahdeen maxaad ka baqaysaa ma kuuri marka ninkii la wadwadi markaas uu adduunka tuu dhaxan dhacdo ama balaayo dhacdo wax la cunaba hadii la waayo kaydka adduunka waa annaga maxay tar oo waan iibin doonaa buu yiri dahab wax ka qaalisan baan ku iibin doonaa adabira وهذا نبي الله يوسف وحي لله ورشقيه كو هذا ابارتها شقاء هذا شقاء سوى البشقيه كيدنا له هو مالها مال نحيته لي مال وحده سيدنا عمر بن الخطاب نفس الشيء خوستا كورن نرويجيا كله دحسين ما بلا دحسن هي مخوها لكن سيدنا عمرنا ولها سيدنا عمر مالته عراق فري انت عراق لا فري سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه تيم كيسي markii la furay al-aslu hadba cidda wax furata loo qaybiyaa inta farda wata iyo inta lugayn sida ganiimada markaas saxaabadii sidaadeen Ciraaq ku taga wadan qani oo ad-Dajla wal Furat oo nin walba xuseen intaasoo maxay intaasoo beer ha ku soo hagaagto kaas Umar loo soo sheego leeyahay waa lagu tagay Ciraaq Umar ragay furtay baa qaybsanaya ajoojiya Umar ma yibi oo muslimiinta soo socotana muslimiinta dal doontana yaale العراق والشام وقف إلى يوم القيامة أيها عمر بن الخطاب في العقلية عمر العراق والشام وقف إلى يوم ومدن محمد بن وقف أتهيو يعني عد ما كان عمر بن فكرية أفرت الصحابية خير أصحاب رسول الله ونفتو دي هرية واحد هاي سيدي إن العراق كتغان عمر وادي وقف فكرية بريطانيا نبي الله يوسفنا فكرة سا يا كقادن أو ما تما إنه حويان بريطانيا هذه السوجي ذوي الله المستعان قلب كل حاد يربع يد من قلب كل حاد المبادرات المجتمعية ودورها في التنمية الاقتصادية المبادرة وإنيشيتيف social initiative marka dhanna maxay soo waxa sameynaysaa jamcu maal accumulation of wealth oo dawa personal or private lacagta ila aruuriya waxyaaba adduun ku horumar waa sidee laakiin agteeda maxaa la socda waxa la socda almubadaraat almujtamaiya waa in agteeda jirta oo maxay soo bulshadaasi waa in wax ku noqdaan waxa ku noqonayaana waa inaanu noqon wax inta la cuno laga fadhiisto godka laga galo aanu noqonin waa inuu noqdo wax athar iyo raad dhaqaale sameeya المبادرات المجتمعية ودورها في التنمية الاقتصادية المسلمين هلكا waxay ku lahaayeen awqaafta ilaahay muslimiintu وسبحان الله ما أنت الحمد لله ما أنت دراسوين دير بقى laga sameeyay awqaafta إلا بأجل محتوى الجاسيسة وحنا عجيب كأخي وحكمل أوقافته وح أبدنا جري المسلمين تمرك أنا قبل لي مرة بالنفقة وضي دي بقى مصروفة يا أبيه دي بقى دحل وقت جيا وضي دي بقى دحل وقت جيا ولا الكيد بقى وحكا دحل يد وحي قاعدة تبو يا وح بدل يدو marka muslimaadkeeni hore marka ay gabadha ay dhaxal badan ay sameeyso maxay wada sameeyeen jireen awqaaf ay wada sameeyeen jireen jaamacatu zaytuna fi tunis gabadh baa furtay jaamacatu qayrawaan fi maghrib gabadh baa maxay toleen waqfiday marka المبادرات المجتمعية ودورها في التنمية الاقتصادية كو مبادرة ولا كقاعدة المبادرة لتقديم أفكار لمشاريع تنموية ورنت أفكارها
أي عرضت أفكار الدور وين لقول هذا إنك وكله هذا شيخنا عراقي بشار عواد معروف بشار عواد معروف ودورس دي تنجر ورجع وين المحدثين زمن كانوا وأنا محققين هو وين زمن كانوا يقولون بشار عواد معروف واحد لو يديه وحنا كتب على القرطي تهذيب الكمال كي مزي وتحقيقي هذه بكورو هي مدينة السلام أي تحقيقي ودم يستري الله المستعان المحلى ابن حزم أو دم أي تحقيقي لو يلا بعتن بيج لو يلا بعتن مجلد مركز واحد لي يحكوا عن قبتي لو حنا مركز سووا تيم بولي تيم نشقية أي بشار عواد ولي عبد الحي حقه markaasaan xigta wuxuu yiri ilaahay wuxuu isoo saari jiray uu ku leeyahay kitaabkan soo hadal qaadaba tujaar kamida waa tagaan urdu masar sacuudiga markaasaan ku leeyahay kitaabkaas aan rabaa aniga iyo tiimkayga inaan takhriijino oo taabacnay markaan baa lagu raabaa 5 sano aan ku tafriiqin fadhiiso kitaabkaas soo saxay waxaan idinku bishaareeyay reer talaso hadda imika Bashaar Awaad macruuf boqorada sacuudiga boqor kamida dhalinyarada ayaa urdu uga yeeray tafsiirkii tabari تفسير الطبري الكبير بإذن الله أي اللودي بإنك تجيبي سبب تحقيقيه وتخريجيه بطبعة بإذن الله تبارك وتعالى فننتظرها محن كسوينا مركع روب سيد اللي كسوي أو كلام طبري بشارنا ولبا ومحيطه تحقيقي محن وصل على مركع التقديم أفكار تي أقوتي محي وباهنتها وحلا يلحظة لبا هذا كل ما لبا هذا كلمان وحضارة والبحنم لبا هذا استعطاء بلاس يمينس هذا لبا استعطاء البحنم السكو لبا ذا هذا كلفوغادان تخلف سوق بالله لبا ذا إسهال لي هو محي وأقومتي يهينتي العلم والمال هذا إسهال أقومتي محي يهينتي هذا لبا ذا أي نقطة اسكو فكر اسكو ضد ميل وجيدا ما حد شال هذا البحنم أي عدالة haddii hayntuna ay meel tahay aqoontuna uu meel u muxuu uu yahay waa wacdiya calaacal oo warkiisa leh kaasoo waa koow تقديم الافكار تقديم الخطط العمليه هي نوع المبادره لتولي المسؤوليه المبادره كلمه مبادره initiative حتى كليه ما هنا بايونير qofkii بايونير noqdo marka maxay sidii هرموت جزاك الله ومركو فكرته وصوهله مركو وصوهله كتابك مركو وصوهله بوجا مركو وصوهله محيط ريسيرشك مركو طلب مركو وصوهله أنا لا فريسانين إسلام مركو بس يكون جرت حماسة وصو قديمه سيدي هدهد بس شبرتي عليه هدهد مبادرة رتبت نبي الله نبته باش هالكن إسلام يرى قالوا هالكن فردة جرتي أخوه هالقاد يا مركز بون يجدوا مركز شيء صورة هدهد مركز حتى الهدهد كان مبادرا ومحيط ولا ما كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم حديث صحيحة إن الرائد لا يكذب أهله إن الرائد صح كده غيرها جرتان فإنه هالكاس نقي بين لا مركز صون نقطة تذكر جرتان يبينوا شيء وكذلك المؤسسات مؤسسات القالة هالنقطة مؤسسات دعوية هالنقطة مؤسسات فكر أما الدولة بحث ولا هالنقطة وما أنت هالكي هدهد كا هي هالكي الرائد كا وحكجرة الباحث بكجرة research كي بكجرة research وحي باريان وحي باريان هالكيبا حنخلني لبعتك سنة صوص على هالكيبو عالم قوس على أفكار تعالم كهجد وتوام محبالي على 20 سنة معكم لو بقول صار مع 20 سنة القادمة 2021 يعني لغاية 2041 سو حلو دومها في وحل يجي هذا جامعة هارفارد باص ما يسبح فيها هارفارد باص ما يسي يلنا والوصو بندق هذا قريب صدح أفر بلود كور وحل الأفكار تمام عالم كدونك أردن هركع عيسى المودبة إن لو بيه شبنا وصدح بينه كو waxay yiraahdeen الإلحاد إله diidnimo waxa socota aan balan karin إله diid soo sax ma kalbadaas إلحاد هذا الإلحاد إثيزم أو حوق جامعات كبا وضع تلفزيونات كبا وضع فيلمات كبا وضع
meel kasta hatta film kartoonka caruurta ayaa maxay ayaa la geliyay filmada caruurta ay daawadaan gudaha ay fadhiyaan aad moodayso action ama inay daawanayaan wax dhammaantood waxa lagu hoos geliyay afkaar lahaad filmkii grey ninkii wolfiga eryanayay kelmadda ugu dambaysa uu filmka ku dhamaynayo oranayo haddaad jirto ku aawo ayna anta waxaasaa loo socda qodobka labaad waxay yidhaahdeen waxaa loo socdaa ashuduud aljinsi alluutiyatu wasuxaaqiya ayaa loo socdaa baa leeyahay marka waxaa la badinayaa cidda qabta netflix HBO shirkaddan weyne maraykanka iyadna filimada Sonyo oo iyadna maxay tahay filimada samaysan Disneyland oo iyadna filimo dhammaantood waa mashiino wada cable oo waxa ka xiga internet meeshu yaalo HBO waa helaysa Netflix waa helaysa dhammaan mashiinada waaweyn ee goosaska waaweyn leh ee ridqaya diimaha iyo afkaarta ridqaya iyaguna waxay u socdaan in caalamka loo jeediyo maxay ashuduud marka ashuduud jinsi samee waa mid ama haddii agtaada lagu sameynayo ha dhibsanin labo haddii dadka ay qof ka mid uu noqdo ha fogeynin stigmatizing garaynin wixii waa labo qodobka saddexaad ee adduunku u socday bay yidhaahdeen waa in mukhadaraadka iyo maarajuwaanihi la sii daayo no more drugs la isku caayo inaana jirin waa in la qaataba tajribada Holland meed ka ganacsanaysa soo isticmaalaysaa mee waa isticmaalaya okay annaga ama kuwa hayna kugu midayna saddexda itijaah ayaa maxay loo socdaa waa haddaba haddii waxa waaweyni oo hantida intaa leeyahay afkaarta intaa leeyahay jaamacadaha intaa leeyahay lagu bislaynayo waxaas ay socdaan mu'miniintii iyo muwaxidiintii Ilaahay subhanahu wa ta'ala ku xidhnaana ninka isagoo caruurtiisa hore u dhalmata waa weyihiin ninka maanta caruur dhalayo caruur baad dhalayo 20 sano kadib waxaasaa loo socdaa tawajuhaadkaasaa doodo waaweyn laga weydiin doono idan taasina waa inay mubaadarada la nimaado markaas mubaadaro waa inay sugin mushkiladu intay dhacdo maxaa laga hortagaa waxaasi waa inay leedahay almujtamacaat aliqtisaadiya walmujtamacaat almaaliya walmujtamacaat addacwiya wadduwalu waa inay tawajuha iyaguna ay lahaadaan qodobka wuxuu yiri ugu dambeeya almubaadara limukaafaxat anwaac alfasaad almaali والاقتصادي والاجتماعي waxa la wixii corruption ee lacag ama economic ama ijtimaaci iyadna waa inaad maxay tooleen qofku way u diidaan waa inuu la dagaalamaa dulmiguna maaha markuu adiga ugu dhaco dulmigu xanuunkiisa inaad dareentid maaha marka adiga lagu dulmiyo zamiilkaaga kolleegaaga haddii la dulmo adna waa lagu dulmiyey mu'asasadaadu haddii ay saaxiibka dulmiso adna waa lagu dulmiyey marka maxay tooleen waa fasaad saaxiibka hadduu mu'asasada dulmiyo waa dhaalim waa saaxiibka ha u qarinin marka ama dulmigu kor ha ka yimaado ama dulmigu hoos ha ka yimaado kilaahuma waa dulmi marka ani iguma dhicin dulmigu marka ma ahayna waa ina isku si maxay toolay wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khaasa qodobka toddobaad waa idaaratu alwaqti wa dawru fi injaaz almaham hasab aljadwal alzamani الوقت طبعا دقائق من الوقت والنبي الله يوسف شيخيسه كجرته إدارة الوقت ما كان النبي الله يوسف وكلا قيبسر مراحش وين قشيغني تضرب محيط ولا أبارة تضرب محيط ولا برواقع يصند لبدباديو محيط ولا قبحيو وقت وين قيمة كلها ومرحلة هذه بلان هذه خطة هذه وين يتعلق تامك هذا idinka macallimiinka ataas taa idinka dhigi doona hadii ilaahay waqtiga waa taqaanaan qiimihiisana waa ogtihiin laakiin way ka muuqataa nabiyullah yusuf way ka muuqataa qodobka ugu dambeeya nabiyullah yusuf aan ka qaadayna waxa weeyaan at-tafaawud mahaaraatu tafaawud adduunku amar uu kuma kala socdo waa la siriixriixa at-tafaawud negotiation qaraaraadka waaweyn marka la qaadanayo iga dur ka durkay inta ka kac inta reeb bal maxaynu yeelnaa waxa soo dhab ay leedahay walaalihii markuu la doodayay markii uu maxay tolo boqorka uu noqday wuxuu rabay inay soo kaxeeyaan hooyadii iyo aabihii dhamaantood ay keenaan walamma jahazahum bijahazihi qala atuni bi akhin lakum min abikum ala tarawna anni awfu al-kayla wa ana khayrul munzilin
فإن لم تأتوني به ولكن فلا كيل لكم عندي ولا تقربوني قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون قاسوا محتول قاسوا بالله ويالين قنعيو بل مد iga taga asiihayo aabay hooyo maxaytol ii keena hadaad keeni weydaan waxba idin siin maayo abaartaas aad ku jiraysaa marka fan tafaawud wa min alqawi ila adhaif wa min adhaif ila alqawi saasi isku riixaysa marka marna waxaad ku jirtaa mowqif qawi joogtaa marna waxaad joogtaa mowqif dhaif ayaad joogtaa qofkuna waa inuu bartaa marka tafaawud waa inuu bartaa wax walba aniga saa boqolkiiba boqol waa aniga boqolkiiba boqol sidayda ha noqoto boqolkiiba boqol sidayda ha noqoto noloshaaba diidaysa noloshaaba xajada diidaysa marka hadaad konton iyo lixdan iska heshid oo berrina aad 70 aad heshid taas oo kale iyadna inaad maxaytan wax kula haatid way ku jirtaa الخاتمة أفرتا قضبها هكا كيالا تحديد الأهداف الكبيرة يعتمد على مستوى الطموح حنكاو أما هدفك يويني وحا حديد يا حنكا يا حديد حد بنت هن لا راح حد بهن تر لا عمر بن عبد العزيز خامس خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أي سوى إن حرقة بدن بوحايو سيدي مصعب بن عمير in aad u xaragoodo oo guriga boqortooyada ku joogo oo iska orayna ayuu ahaa anoo yarba wuxuu yiri waxa ay galay buu han baa galay dumuux waxaan doonay af arabiga inaan barto oo baliir af arabiga ku noqdo gabayadooda iyo taariikhdooda iga sheekay miyii baan tagay af arabiga waan soo bartay xataa inaana kelmadii dhagteeda ku cusbaanin in yar kadib waxaan doonay buu yiri inaan xataa la guursado Abdulmalik ibn Abdulmarwan inantiisi Fatima أي نفتي حتى وهنقل تاكتي waa weydiistay waa leysiyay bir Fatima hadana wuxuu naftayda waxay u hanqal taagtay yar kadib yiri bari saabka Madiinatu Rasuulillah sallallahu Madiina adu madax ka noqo waa la igu qoray yiri Madiina madax ka noqday yiri Madiina ma kan dhameystirtay baan siirbiyo hadaad Madiina u talisay waa muslimiinta baa u talin kartaa markaas waxa igu dhacday yiri Khaliifatu Rasuulillah noqo adigu meesha Abdulmalik ba adigu hay fadhiiso adeerkay markuu gooyay anu magacaabay yiri ana khaliifada isagoo khaliifada abu warkan ka warramay maanta maxaa doonaysaa baa Umar ibn Abdul Aziz taaqat nafsi ila jannati wa musahabatu rasuulillah wax kale uma hadhane nabi maxamed aan garabka u saaro oo jannada ku walaalowno ayaa maanta maxaa taasan xitaa u shaqaysan shuf من اللغة العربية إلى برساب إلى خليفة أطموح نفتنا وتواقع نفط بني آدم كنا هذه إجراء ومحيطه وحقوق الضرر برتيقان وحي هذا المشكلة مشكلة حركات الإسلامية مشكلة أفكارها مشكلة دعوات أو إذا مشكلة الشركات أو إذا وكل مدهوي قفك إن أنا الله محيل هاي طموح إن أنا الله هاي opposition كيسي و 10 15 years وهل بس شوف اليوم نفس position من 10 إلى 20 عاما هذا يسجل وهو كل على مولاه يسوون شركتنا يكوي هاي يدينا علس بيكوتها ومحيط ولا لأن قفك مركو أنت يروي قارن لأن أنا قفك أروح هاي محي هالمشي كنا خاك هالمشي هو قصعه هالمر عصب قبو هالبل challenge عصب محيط ولا إنجل نفتنا واحد يكون في عانت ما نبل الجليو challenge عصب إن الجليو وهذه نفس التواقع نفسه وهذه نفس جالس ونفس تواقع هو ملك الوصول هذا هو تواقع أسمع قبل كلامه سوق كفاية سنة خاتمة توفر الكادر كلمة كادر وقال ضم بقري هذا كادر وكلمة ذي شيوعها عليه هذا وكلمة ذي نو كينين دولة شيوعية عليه في عربي وحويا الأطر لغة فصيحة حبانا ياس يرى حدا ماشي ها حبا ابن محوها أبي بكر العرب أي وأرضي أبي حامد الغزالي markaas markuu Andalus ku noqday ayaa wuxuu yiri sheekayga isagoo yarbay falsafada ku tagtay isagoo yarbu falsafada aad u dhigtay markuu doonay inuu iska soo wada matajiyo way ka wada iman weyday gabigeedii waxba sheekayga kaga siyar harijir marka waa kelmadka inoo dhuuntay raali hada in tawaffur al-utur al-ilmiyya للمؤسسة على مستوى الأقسام والمؤسسات يساهم في تمييز المؤسسة ومحي حدي أي مؤسسة أي هشو ضدك أي هشان أي كدويين مؤسسوين كلمت كأح أي كسر ريان كنا حسر ريان كنا حرفت في عينين مؤسسة ويدها فصح
marka mu'asasooyinku iskuma dhaafaan guryaha iskuma dhaafaan gidaarada ee waxa isku dhaafaan maxay dadka dhiiga nool ee curinaya ee fikiraya ee dadaalaya marka shirkadiba jamaacadiba masaajidba malcaamadiba cidda joogta dhaqdhaqaaqeeda iyo fikrigeedu sida uu yahay ayuu ka kale kaga laga yaabaa in laga qurux badnaado xagga gidaarada laga qurux badnaado laga yaabaa laakiin waxaan dhaqaaqay inuu kuleeyahay waa maxay marka nabiyullaahi yuusuf markii uu masar uu tagay ee balaayadu ay dhacday ee wasiirka uu noqday de nabiyullaahi yuusuf ayaa waxaan keenay ee guriyii waaweynay masar ma ahaydee soo ma fahmaysaa marka galitaanku nabi yuusuf uu galay muassasadii maamulkii masar buu bedelkan uu keenay taana halkaas ku al-amaana at-ta'anni afarta qodob buu kaga baxay marka wuxuu ku leeyahay طموح uu soo noqday aqoontii way soo noqotay amaanadii way soo noqotay iyo quyar socod sallallahu wa sallam barak ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa jazakumullahu khayran